ku soo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad sheekadii abaalmarin jacayl dhol casir dheer ayay intay muraayad weyn hor tagtay bay isdiyaarintii isku bilowday xiisaha ay u qabto ballantii ay wada yeesheen saaxiibteed Jamiila darteed hadba dhar bay isku tijaabisaa way ku qanci weysaa misna mid kale ay xirataa haddana way iska siibtaa waa taas muraayadda weyn hor taagan hadba dhar isku eegaysa haddana kay rabtuu la noqon waayaa maya kani ima cajabin ayay tiraahdaa markii dambe sidii qof hawl uu qabanayay ku daalay ayay kursi dhinaceeda yiil si taxadar la'aana isugu tuurtay iyadoo kursigii weli ku dangiigda ayay saacaddii gacanteeda ku xirnayd isha ku xadday waa 7 fiidnimo oo 6 daqiiqo dhiman wallaahi waa habsaamay bay niyadda iska tiri gacmihiina dharkii ay raadinaysay bay dhex maquurisay siday u raadinaysay bay goor dambe dacal ka aragtay goonna ay aad u jecleed oo maryo ka sokeeyey ka qarinayeen alla waatan intay tiri ayay darafka soo jiiday hal heel bay goonnadii u gashatay dhol waatan ka soo baxaysa qolkeedii hurdada iyadoo ku labisan goonna madow funaanad cad oo qafiifa oo ay ka sii sarrayso shalmad yar oo guduudan intay kabaheedii hore u sii illatay ayay ballantii iyadoo oofinaysa fiidnimadii 4 jardiino soo abaartay dhol markii 4 jardiino timid waxay isha la raacday ubaxyo kala jaadjaad ah iyo jardiinooyin yaryar oo kala go'go'an laguna qurxiyey dhir kala midab ah oo ay laba iyo koox-kooxba u fadhiyaan dhalinyaro wajiyadoodu farxad badani ka muuqato geed ubax ah oo jardiino 2 qof loogu talagalay ku dhinac yaalla ayay iyadoo hareeraheeda eegaysa hoos fadhiisatay jardiinadii iyadoo sidii ugu fadhisa oo saaxiibteed ku sugaysa oo hadba qofkii dhadiga ee soo muuqda ay moodaysa iyadii ayay aragtay wiil ku leh waan ku salaamay walaal iyadoon waxba u arag salaantii wiilka ayay ku tiri waan kaa qaaday aboowe ma fariisan karaa agtaada inankii oo hadba u soo dhawaanaya ayaa weydiiyey waad fariisan kartaa bay ku tiri iyadoon weli wax dareen ahi gelin intay ka yara durugtay ma qof baad ku sugaysaa halkan mise keligaa baa ku caweynaya wiilkii oo jardiinadii dhinaceedii kale ku soo fariisanaya baa yidhi waxaan la ballansanahay saaxiibtay oo xaafadda jungal ka imanaysa kadibna tiyaatarka qaranka ayaannu aadaynaa bay ugu jawaabtay wiilkii oo wejigeeda si quman u eegaya oo maxaa tiyaatarka ka doonaysaa fogaantiisa xilligan ayuu weydiiyey aboowe caawa riwaayaddii la magac baxday hablayahow hadmaad guursan doontaan ayaa tiyaatarka lagu dhigayaa sidaa darteed riwaayaddaannu soo daawanaynaa aniga iyo saaxiibtay dhol intii aanay hadalkii dhammaysan baa waxaa isla soo taagay Jamiila oo in cabaara sugaysay kadibna intay ilkal gacayl ka muuqda ku jalleecday wiilkii ayay ku tiri walaal waan tegaynaaye nabadgelyo oo iska dhaqaaqday wiilkii oo aad uga xumaaday in iyagoon weli iska bogan isbarashadii ay kala tagaan ayaa ku yidhi ma inagoon isbaran ayaynu kala tegaynaa dhol baa intay dib isu soo taagtay 2 tallaabo inankii ku tiri iyadoo wejigeedu xishood ka muuqdo hase yeeshee hoos ahaan xiisaynaysa inay wiilka sheekada la sii wado barasho wanaagsan aniga magacaygu waa dhol abbaaya anigu magacaygu waa Hiloole laakiinse meelaan u socday ayaa idinna u socotaane waa isla doonasho ilaahay ee ma isku lug darsannaa inankii baa yidhi oo maxaa ku jaban bay tiri dhol inakeen baskaas wada raacnee intay dhankii baska u dhaqaaqday markii baabuurkii la fuulay ayaa Jamiila oo ishayn kari weysay ku tiri dhol ma isbarashadu ma labadiina bay ku kooban tahay maad wiilka iskaaga bartid barasho wanaagsan wiilkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Hiloole waxaan rajaynayaa inaanu noqon doono 2 qof oo aad isu xiriiriya isuna qadariya dhol oo Hiloole saaxiibteed baraysa baa tiri Jamiila iyana way isbartay Hiloole walaal aad baan ugu faraxsanahay caawa isbarashadeedna Hiloole oo farxad u muujinaya baa yiri aniga qudhayda kula mid baan ahay dhol oo hadalkiisa weli u dhagtaagaysa baa ugu jawaabtay dhol waxay ku ballameen shalay saaxiibteed Jamiila markay dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ka soo wada rawaxeen inay caawa tiyaatarka qaranka isu raacaan si ay u soo daawadaan riwaayad maalmahaas iidahdeedu raadiyaha ka socotay Jamiila berigii ay yareed aad bay u xiisayn jirtay
heesaha iyo riwaayadaha oo mararka qaarkood waxay habeenkii geli jirtay Shaneema Soomaaliya laakiinse waqtiyadii dambe waalidkeed baa u diiday sidaa darteed way iska dhaaftay caawase saaxiibteed Dhool bay ku xushmaynaysay raacitaankeeda intii isdhaafsiga ereyada macaan lagu jiray lama dareemin xawaarihii basku ku socday waxayna hal mar Jamiila maqashay kirishbooygii oo dadkii baska saarnaa ku leh caawa tiyaatarka yaa ku degaya intuu istaagay taalada xaawataaka dhinaceeda sidii bayna Dhool iyo Hilowle gaarigii uga wada degeen hal daqiiqo kadibna intay laba lambar oo isku xiga goosteen ayay jaranjartii tiyaatarka cagta saareen iyagoo u sii socda halkii dadweynuhu fadhiyay masraxii markay gaareenna waxay wada fariisteen laba kursi oo dhanka dambe ka banaanaa oo isku xigay daawadayaashii oo mid waliba kursigiisa ku fadhiya baa hal mar daahii furmay jilayaashii riwaayadda oo daawadayaashooda ku soo dhaweynaya heesaha iyo majaajilooyinka la soo bandhigi doono ayaa masraxii ka soo muuqday riwaayaddu waxay ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan Dhool iyadu marna waxay eegaysay Hilowle marna hoballada heesaya marar badan bay intay jalbootay istirima gashaa ciyaarta masraxa Hilowle ayaa sadejiyay isagoo isleh armay nin kale ka raacdaa Dhool waxay ahayd yaraanteedii qof ku fiican ciyaaraha qoobka ciyaarka iyo dhaantada muusig meel ka dhawaaqaya marka ay maqasho xubnaheeda qaar baa dhaqdhaqaaqa xaadeeduna wayba istaagtaa riwaayaddu intii ay socotay Dhool iyo Hilowle waxay si aad ula dhacsanaayeen kulankooda cusub ee farxadda ku bilowday waxayna aad ula dhaceen mid kamida heesihii riwaayadda ku jiray oo ay erayadeedu kamid ahaayeen ballantii aanu dhigannaba weligaa habeenayn barashadii kalgacalkuna bilaash aanay kula noqon markaadiga taale fakaleeta weynay mid babtiin xataata hay ahdiibuna firkulayaan ballantii dhigannaba weligaa habeenayn barashadii kalgacalkuna bilaash aanay kula noqon waxay riwaayaddu socotaba oo heese iyo dhacdooyin la yaab leh la soo bandhigaba waxay gaartay guntii iyo gabagabadii riwaayaddii way dhammaatay daahii baa hal mar la soo rogay dadkiina way ka soo dareereen tiyaatarkii markii laga dareeray tiyaatarkii oo dadkii bannaanka u soo baxeen ayuu Hilowle yidhi gacaliso waa xilli dambe ina mari yaan guriga lagaa xirane Dhool hadalkaas naxariista leh aad bay ugu riyaaqday intay gacmaha isqabsadeen ayay bas ka raaceen taalada daljirka dahsoon rukunkeeda Jamiila waa la halmaamay tiyaatarkii intay dibadda uga soo baxday ayay dad fara badan oo tiyaatarka hortiisa tuban ka dhex raadisay Dhool iyo Hilowle markay dadkii ka dhex arki weysay ayay madxafka qaranka hortiisa iyana taksi ka raacday oo gurigoodii aaday Dhool iyo Hilowle intii ay baabuurka la socdeen waxa ay isdhaafsanayeen erayo macaan oo markiiba cishqi isku bedelay Dhool waxay tiri walle aniga Hilowlow erayadan macaan ee naxariista leh naftayda ku diirsatay oo weli ismaan oran wiil sidan u qurux badan ayaad caawa la caweyn doontaa ma hubtaa Hilowle oo wajigeeda eegaya yiri markii baskii laga wada degay oo Dhoolna la sii dhaweeyay ayaa Dhool iyo Hilowle waxa ay ku heshiiyeen in halkaas xiriirka laga sii ambaqaado jimcaha dambana la kulmo sidaas baana lagu kala hoyday habeenkii midba midka kale wuxuu ku lahaa jaw bye bye isma dhaafno abbaayo iyo aboowe wuxuu habeenkaasi ahaa habeenada kale ka hooda badan
oo roob miiraale ahi da'ayay kaasoo dhulka bustii ku nabay iliilaha biyuhuna si aan kala joogsi lahayn isaga qulqulayeen neecaw qaboobina dhacayso wuxuu ahaa habeen jawigu aad u macaan yahay oo labadii isbaratana ishaaro fiican ay u tahay dhegaystayaal inta ah inoo joogto qaybtii koowaad ee sheekadii abaalmarin jacayl